إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إن شاء الله تعالى كلمة دي دوانت وحاويان waxay ku saabsan tahay ramadaanka iyo fadaa'ishiisa kelimada hore waxaan kaga hadalay u diyaar garowga ramadaanka aan kaga hadalay inaad tooba la qaabisho inaad la qaabisho maartay himma caaliya inaad la qaabisho diyaar garow dhab inaad la timaado inaad ka faa'iideysato maalmahaas iyaga barakada badan iyo ayaaman macduudaat in Ilaahay uu ku tilmaamay ayaan ka soo hadalay ma garanaysa maanta waxaan ka hadlaynaa fadaa'ish bishan ay leedahay fadliga ugu horeeyo waxa weeyaan oon taabanayna waxa weeye in maartay albaabada jannada la furahayo albaabada jannada in la furahayo nabiga cali salaatu wasalaam wuxuu yiri hada shahrun ramadan jaakum تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay bishan iyada ah waxaa idin timid bishii maartay la furayay albaabada jannada oo la xiraya albaabka naarta oo macnaha la silsiladeynaya shayaadiinta la silsiladeynaya qodobka isaga ah waxay fadligaas khaas ku tahay bisha ramadaan bay khaas ku tahay habeenka ugu horeeya ramadaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay إذا كان أول الليلة من شهر رمضان فدت الشياطين شيطانك أيال حرحرية هبينك إسقعه ومردة الجن مدكيس مردة يا مدح عادك بالحرحرية جندي وحويان الباب كذي ولا فرية نارتنا الباب ده ولا حرية أيو النبي عليه الصلاة والسلام ينور شيء مثل دواقة هي وحليه هي معناها وحويان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر بليه كي مارت خيرك قابلها يو سو قابل يا كي طلبه هي وسو قابل كي شركة طلبه هي وكقابسو سقاهر بولي ولله عتقاء من النار نارت إلهي سبحانه وتعالى وحكو حرنا يا ضد بدن أيو كحرنا يا مارتي بلها هبين ناس يلا بشهر رمضان مارتي يله كحرنا سبحانه وتعالى هبين كست أولي من رمضان كأويان بالليل وذلك كل ليلة أيو دعية قلب كصدحات أيها الإخوة بشهر رمضان وحويان آد مهم كأوتهاي in aan ka hadalno waxa kamid ah bisha ramadaan in dunuubta lagu dhaafayo dunuubta in lagu dhaafayo ayaa kamid ah waxa rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu leeyahay as-salawaatu al-khamsa wal jum'a ila al-jum'a wa ramadaan ila ramadaan mukaffiratun lima baynahun macnaha waxa weeye ida jtunibat al-kaba'ir macnaha salaada khamsada ay shanta ah macnaha waxa weeye qofkii tukada oo shanta salaadood ilaaliya qofkii jumcaha ilaaliya oo tukada min jum'a ila jum'a معناها رمضان إلى رمضان وحاويان مكفرات بويل النبي وحي دافيان ولو دافيا ذنوبتا أيا لو دافيا لكن ذنوبتا صغير كاوي كبائرك وحاوي توبد بأبهين هذه مركز صلاة تكتو صلاة كلا إلا لقى جارو وحلو دافيا ذنوبتي على سميسية يركيد صلاة إلى صلاة معناها وحاويان هذه رمضان إلى رمضان مركز حلو دافيا وحد ذنوب إيه يرير لو دمر لو دافيا وحلو بهين مركز إنا تسداس إيضا عاد أحسسناتو ومكفرات إن يهين إلهي سبحانه وتعالى إنه ينوغدغو aan maartay aan Ilaahay weydiisano qodobka kaleento maartay u baahannahay inaan isagan isku baraartino waxa kamid ah waxa la yiraahdo bisha Ramadaan umrada waxa la yiraahdo al-umra macnaha inaad umra soo gudato waxay leedahay fadaa'ilad aad iyo aad u weyn bay leedahay waxaana weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay umra fi Ramadaan inay tahay maartay tacdiil xajj inay xaj u dhiganto ma ahan inay xaj tahay لكنه معناها waxay ku tusinaysaa ahmiyada ay leedahay iyo ajirka ay leedahay bay ku tusinaysaa meesha kacbada ahna qofkii tagay ayaa tagay waxa weeyaan waxa ku jira fadaa'il aad iyo aad fara badan salaadeeduna hadda iska bada aad ku tukato kumanaan salaadood meeshana ku tukatay ka waxaysan tahay hadaba waxa loo baahan yahay qofkii tagay kara umra inuu tago oo uu isku dayo inuu ka faa'iideysto ramadaanka tobanka hore tagiya tobanka dhexe tagiya tobanka dambe tagiya hadda waxa weeyaan fiisooyinkii baa la fududeeyay marka waxay noqotayba meel oo maartay aad iyo aad busy oo bay noqotay aad baan looga batay
runtii marka haddii aad boos ka heshaba hoteeladiisii iyo wixiisii oo maaragtay qaali ay ka dhigeen iyo nolosha oo maaragtay aad iyo aad maaragtay usii waxaysmaysa way jirtaa laakiin hal la tago qofkii tegi kara ha taga insha allahu tacaala ilahi subxana wa taala u fududeeyo bishan iyada ah waxay khaas la tahay qur-aanka yaa soo degay fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah nuzuul lqur'aan qur-aanku ilahi subxana wa taala soo dejiyey shahru ramadaan alladii unzila fiihi lqur'aan buu ilahi ku tilmaamay waa bishii qur-aanka ilahi soo dejiyey ya marka hudan linnaas iyo wabayinaatin min alhuda inuu qur-aanka ilahi usoo dejiyey macnaa inay u tahay dadka hanuun iyo maaragtay inay u tahay macnaha bayinaatin maaragtay mid oo maaragtay caddaynaysa iyo furqaan xaq iyo baadilka mid kala geynaysa faman shahida minkum ashahra falyasumhu waman kana mariidan aw calaa safarin faciidatu min ayaamin ukhar يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بالله سبحانه وتعالى عليه marka quraanku waxa weeyaan isagana ayaamahaas iyaga ee fadliga badan waxa weeyaan waa ayaamii quraanka la soo dejiyey ilaahayna quraanka waa nagu sheegay in anzalnahu fi laylati alqadri wama adraka ma laylatu alqadri khayrun min alfi shahrin waxa kamid ah khasaa'ista bishan ramadaan bay kamid tahay in lagu soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka habeenka laylatu alqadriga welibana maartay habeenka mubaaraga ah oo ilaahay ku tilmaamay حاميم والكتاب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إلهي سبحانه وتعالى آيات أذكرنا وكذا هذي مركب وحويان وبال خاص لا دتين القرآن كويان مركب وليلة مع كتر تهابين قال ليلة خير من 1000 شهر ليلة خير من 1000 شهر معناه كخير بدن معناه كم بلوت كخير بدن waxyaabaha aan u baahannahay inaan isku baraarujino waxaa ka mid ah in habeenka isaga la raadiyo ramadaankana laga dhex raadiyo qof kastana uu maaragtay isku dayo inuu ka faa'iidaysto habeenka isaga waxaa laga yaabaa dadka ramadaanka markii la gaaro in ay maaragtay habeenna intay dacaystaan habeenada kalena iska caajisaan marka habeenkii uu ku dhaafay saas ku dhaafaya marka waxaa loo baahan yahay soddonka beriba inaad maaragtay aadan seexanin soddonka beriba inaad dadaasho soddonka beri inaad ilaahay barido soddonka beri inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad ku daydo inaad habeenkaa kula kulmiyo saasaad marka yaad maaragtay yaad ku heli kartaa habeenka laakiin haddaad habeenna seexato habeenna soo kacdo habeenkii hebel 27 yaan anigu tiigsanayaayo habeenkaas laylatul qadri aad tiraahdo waxaa laga yaabaa inaadan dhexsiibin wey 22 kay noqon kartaa 23 kay noqon kartaa 25 kay noqon kartaa maalmaha kale noqon kartaa waa culimada qaar xataa ay dhahaan maartay ramadaanka dhexdiisa maartay xagga hore iyo xagga dhexe way geli kartaa walow xagga u dambeeyo aad iyo aad loo filayo inay noqoto marka habeenkaasi waxyaabaha maartay bishan ay khaas kala tahay habeenka barakaysan baa kamid ah ee khayrka badan waxaa ka mid ah bishan khayr la tahay taraawiix qiyaam iyo khayr gaar la tahay man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofki istaaga oo kaca oo habeenadaasi maartay ramadaan u kaca salaada taraawiixda inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay dartiisna u kaca markaas iimaanan iyo waxtisaaban u kaca ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u dhaafayaa dembigiisii kii hormaray iyo kii dib maray marka arrintaas iyadana waa xadiis maartay isaguna nabiga calayhi salaatu wasalaam horreeya warinaya waxaa loo baahan yahay in maartay arrinka isagana laga faa'iideysto ikhwaani jazaakumullahu khayran qodobka kale intaan u gudbayno ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyo kuwii ka faa'iideystana allah inaga dhigo taraawiixdaas iyada ah waxaa ka mid a dadku macnaha 10ka hore soo buuxinayaan 10ka dhexe haddana khad ka baxayaan 10ka dambaad haddana waxaad arkaysa iyagoo soo noqday macnaha waxaa weeye qofku ha isku dayo qiyaamka inuu wado sidaan hadda uga hadlaynayba habeenkaas sidaad u raadin lahayd waxa weeyaan waa markaasi waxay keenaysaa inaad maartay soddonka beriba aad taagnaato wey qodobka kaleento ee fadaa'isha ka mid ah al-i'tikaaf baa ka mid ah bishan waxay waxyaaba khaaska la tahay ramadaanka ba inaad ku i'tikaafto maartay intaad iska fadhiisato xaramka intaad fadhiisato masaajidka intaad fadhiisato maartay ma garanaysaa cala laqal haddaadan i'tikaafi karin cala laqal inaad habeenna ka mid ah i'tikaafto saacada ka mid ah inaad i'tikaaf samayso waxyaabahaas iyaga waxay cibaadaad u baahan in la nooleeyo waa sunno u baahan in la nooleeyo waa اعتكافكو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحو اعتكاف جري طبعاً أول دم اعتكاف جري سيدا معروف كحيد أو رمضان كا إلى أن تكوفصي ثم اعتكف أزواجه من بعدي هوين كي سوى اعتكافي كدبنا مارتي ومركز سجع سنة يدا راعي مركب حلو بهاي هاي سنة اعتكاف كان إنا نوريه marka اعتكافكو وسنة dadku aad hadda aysan u nooleeynin way masaajidada maartay sida badan markaan fiiriyo wax aad u اعتكاف ma lahan marka sunnadaasina hala nooleeyo oo hala soo celiyo ilaahay idankiisa allah inoo fududay bishan waxyaaba khaaska la tahay waxaa ka mid ah aljuud deeq qofku inuu maartay waxa uu wax bixiyo oo uusan maartay ma garanaysa la bakhayrin ilaahay khayra siiyo dad badan oo maartay bisha ramadaan maartay waxa weeyaan dirasada qadira ummadda gaalmeeya aad iyo aad u badan yihiin waxaan loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay arrintaas iyada maartay bisha ramadaan khayrka ilaada xataa zakaadka
qofkii saka bixinaya inuu ku aadiyo qofkii saka bixinaya inuu bisha ramadaan ku aadiyo bixiyo kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ajwada annaas bisha ramadaan haddii la gaaro rasuulku wuxuu ahaa midka ugu deeq badan buu ahaa balay wa kaana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan hortiisaba isagoo deeq badnaa ayuu wuxuu ahaa bisha ramadaan kaana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan deeq wuxuu ugu deeq badnaa bisha ramadaan buu ugu deeq badnaa xiina yalqaahu jibriil baa layidhi jibriil markuu la kulmahayo marka bishaas iyada ah waxaa weeyaan jibriil baa maarata qur-aanka la muraajacayn jiray fii kulli maarata leyla ayuu maarata kulmi jireen oo ramadaanka ka mid a qur-aanku la daraasan jiray fala rasuulullahi ajwadu bilkhayri min arjaxi lmursala xataa dabaysha la diray ee khayrka xambaarsan ee roobka wadaa ayuu rasuulku uga degdeg badnaa baa layidhi ma garanaysaaye yuu ka degdeg badnaa xagga khayrka maarata iyo sadaqada iyo bixinta bisha ramadaan aad iyo aad bayuu uga degdeg badnaa baa layidhi marka waxaa weeye maxaa keenahaya lianna waxaa weeyaan sadaqada iyada ramadaanka la bixiyo tudaacafu waa aad baa loo laalaabhayaa oo ma garanaysaa waxay imanaysaa in maaragtay qofka isaga ajir aad iyo aad u fara badan u helo marka dadka saa'imiinta ah in la afuriyo dadka maaragtay waxaa weeyaan maaragtay baahan in la kaalmeeyo in la afuriyo aad bay u fiican tahay wey dadka ehelka qaraabada ah ee waddankii jiray duruuftooda iyaga qurigooda la dhaqaaleeyo oo laga qayb qaata bisha ramadaan aad iyo aad wixii la gaarsiin karo wax yar iyo wax badanba ilaahay subxaana watacaala ha inoo fududeeyo waxaan la baxnan allah ina siiyo dadka waxaa loo baahan yahay marka wax haysto inay wax bixiyaan waxaa la yidhi maaragtay waxaa weeye wax bixintu maaragtay iyadoo mar walba ay tahay maaragtay khayr badan tahay bay bisha ramadaan waxay tahay mid aad iyo aad iyo aad u khayr badan wey aad iyo aad u khayr badan marka soomkii iyo sadaqadii iyo khayrkii kalentoo dhan oo kulmay ayaa marka waxay noqonayaan wax weyn bay noqonayaan marka adoo sooman adoo sadaqa bixiyey adigoo maaragtay ma garanaysaa khayrkii kaloo dhan ku jira qiyaamkii adigoo qur-aan akhriskii ku jira adoo wax badan oo khayr isu geeyey bisha ramadaan haddaad wax bixiso waxaa weeyaan maaragtay waxay noqonaysaa wax aad iyo aad u qiimo badan bay noqonaysaa waan soo gaagaabsanaynaa qodobada ugu muhiimsan waxaan maaragtay u dardaarmaynaa dadkeenna in ay maaragtay ku dadaalaan bisha ramadaan number 1 in ay soomaan in soonkaas iyo axkaamtiisa la ilaaliyo oo adaabtiisa la ilaaliyo waxaan maaragtay ku dardaarmaynaa in qiyaamka la yimaado oo taraawiixda la yimaado ayaan maaragtay dardaaranka anagu yahay taraawiixdana maaragtay aysan noqonin mid ma garanaysaayey macnaha waxaa weeyaan 10 beri hore la istaaga waxaan maaragtay u dardaarmaynaa in maaragtay ehelkii la kaalmeeyo sadaqa la bixiyo qodobadaas iyadaa ugu muhiimsan maaragtay aan aad iyo aad ugu baronayna dadka habeenka laylatulqadriga cumro qofka cumraysan kara arrimahaas iyaga ah qira'atul qur'aan inaad qur-aanka aad iyo aad maaragtay bishii qur-aanka weeyaan aad u noolayso intaasaa dardaaranka anagu yahay baaraka allahu fiikum wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim